waalid waxaa jira mar aad adigu gacantaada ku burburinaysa carruurtaada sababna aad u noqonaysa markay koraan inay isnacaan, inay isburburiyaan, inay isdilaan. waxaa la yidhaha sibling rivalry. waa dareenka aan caafimaadka qabin ee walaalaha dhex yimaada, maseyrka, xasadka. adigaa gacantaada ku sababay waalid, adigoo qalbigaagu fiican yahay. qur-aanku wuxuu ina barayaa carruur aabbahood nebi yahay, awowgood nebi yahay, walaalkood nebi yahay. waxay dareemeen waa nebi yuusuf walaaladii in laga jecel yahay. waa kuwa yidhi marka ina yuusufa wa akhuuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusba. yuusuf iyo walaalkii baa nalaga jecel yahay, annagaana tiimkii ah. intaas keliyay dareemeen. kadibna maxay dhaheen uqtuluu yuusuf aw idraxuuhu arda. yuusuf dila ama waddankeenna ka saara. fiiri, haddii waalid taleefonkaaga adoo dhowr carruura leh aad mid ka mida iskariinka sawirkiisa saarato, mid ka mida carruurtaada sawirkiisa wiil iyo gabadh haddaad iskariinka saarato, kuwa kale aadan saaran, mar kastoo ay arkaan iskariinkaas waxay dareemayaan in laga jecel yahay iyaga. waxay dareemayaan saaxiibadaa markaa u tagto inaad ku fahanayso ilmahaas, inaadan iyaga jecleen laakiin isaga jeceshahay ama iyada jeceshahay. carruurtu waxay dareemayaan dareen aan caafimaad qabin sida nebi yuusuf walaaladii ay u dareemeen waxaas. kadibna way nacayaan ilmahaas, way colaadinayaan. waxaa laga yaabaa in markay koraan xitaa aanay wada hadal. way dhacday waddankan gabdho xitaa markay guur gaareen isburburiyey oo inay reerka iska burburiyaan ay ku qasabtay. keliya mid ka mida waxay dareentay waalidku inuu iyaga ka jecel yahay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa u yimid hadda ka hor nin baa u yimid, markaasuu ku yidhi yaa rasuul allah, ilmahayga ayaan waxaa iyo waxaa u sameeyey ama u soo gaday. rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi carruur kale ma leedahay? markaasuu yidhi haa. iyagana ma u samaysay oo ma u gaday buu yidhi. markaasuu yidhi maya. rasuulku sal alla alay slam wuxuu yidhi wax cadaalad darro ah anigu markhaati kama noqdo. u fiirsa, rasuulku wuxuu ka digayaa carruurta inay ku wada sinaadaan oo aadan kala fadilin. qalbigaagu wuu jeclaan karaa mid ka mida, laakiin ha kuu sinaadaan. ilaahay carruurteen ha xifdiyo. janaalka aad nagala socotaan waa waalid legacy. fadlan saaad u hesho muuqaaladan waalidow subscribe dheh, walaalada kale muslimiinta ana la sheergare. waalid legacy. assalaamu calaykum. It shines so bright, a rising star in the endless night. From roots so deep to skies so high.